Assalaamu calaykum kulan wacan wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan waa mar kale barnaamijyada caafimaadka ee xagga daraasadaha dunida waxa ku soo kordha caafimaadka oo aan halkan idinka soo gudbino. haddaba mawduuceena maanta ayaa waxaan ka soo qaadan doonaa khataraha caafimaad ee biyaha la safeeyey oo daraasado la qaaday lagu ogaaday inay yihiin kuwo halis ku ah caafimaadka guud. balse intaynan u gudbin qaybta xigta qadar yar oo ogeysiisa. fadlan ku xidhnow kanaalka oo taabo subscribe sidoo kale fura gambaleelka ama jelis. khataraha caafimaad ee biyaha la safeeyey waxaa ka maqan macdano muhiim ah jirka waxaanay sababi karaan in jirku uu lumiyo elektaroole muhiim u ah biyaha taasoo horseedi karta heerarka dhiigga oo hooseeya. biyaha noocan ah waxay sidoo kale dhexgeli karaan unugyada in ka badan biyaha la macdanta taasoo keenaysa barar iyo in biyo badan ay jirka galaan iyo sumowga biyaha oo waxyeello u geysan karta unugyada iyo lugaha. hase yeeshee daraasado la qaaday ayaa soo jeedinaya in dadka la keliya xanuunka ay ka fogaadaan isticmaalka biyaha la safeeyey gaar ahaan dadka leh dhagaxaanta kelyaha iyo sidoo kale cudurrada kala duwan ee kelyaha ku dhaca. sidoo kale waxay daraasado hoos ka xaqiiqayaan inay ka fogaadaan adeegsiga biyahan inta ay awoodi karaan.